kulanti wacan mar kale ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka. sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. waxaad ka heli kartaa channelka Ogaalka Audio iyo bogga Facebook ee Maahir Jaamac Aadam. qaybtii tan ka horeysay ee toddobaad waxa ay inoo joogtay Master Wadani oo dubi la soo hadlay kadib muddo ka yar bil oo aanu cadho ku kala maqnayn. waxaan soo sheegnay inuu ii sheegay inay rabaan kooxdoodii inaan ka caawiyo magaca groupka oo ay ka dhalatay isfahan waa badan oo iyaga dhexdooda ah. waataan soo sheegay inaan weydiiyey maana idinku biira ma idinka igu soo biiraya mise waxba inuu isku wada darsanaa. qosol uu uga warceliyey su'aasheeda kadib waxaanigii idin wariyey inaan ku kala tagnay waa inoo beri oo ah fariin qoraal ahayd oo uu ii soo diray Wadani, taas oo uu la jeeday bal inuu dib ugu laabanayo qolihii ii soo diray. haddaba maxaa xigay? Master Wadani wuu igu soo laabtay oo wuxuu isoo wacay xilli dambe maalinkii uu ila ballamay. wuxuu iga cudur daartay inuusan macquul ahayn dalabkaygii ahaa inaan isu keenno rag aqoon-yahano ama dhalinyaro ah oo labadeenna dhinac laga soo xulo. iska daa intaasi xitaa wuxuu diiday inaan aniga xubin dhiibata fikirkeeda ka ahaado qolka. laakiin wuxuu igu yidhi haddii aadan doodayn ama aadan samaynayn muran waan ku dhex geenayaa qolka. fikirkaas dambe ayaan jeclaystay waana ballan qaaday inaan sidaa yeelayo. fulinta qorshahaas waxay qaadatay inta la dhisayay koox kale oo WhatsApp group ah sida aan markaa qiyaasay. ka tiro badan kuwii hore, ka hadal badan, ka dhalinyaro badan, waliba ka firfircoon. aniguse waxaan ahay mid quusa oo aan sabayn ismuujin inta dooduhu socdaan. magaca qolka waxaa loogu magacdaray Midnimada Soomaaliya, laakiin bil kadib waxay koox khubaro ah u rogeen aqoon-yahanka Soomaali Abow. magacaas waan maqli jiray, sifooyin badanna waan ku maqli jiray, laakiin kama hayo weli fasiraad sax ah. mar kasta oo aan haysto fursad waxaan helayaa codad iyo fariimo leh qosol, layaab iyo isweydiin oo aan ka dhex daalacdo qolka. aamusnaanteedii waxay aad u dhiirigelisay iina soo dhoweysay saaxiibkay Master Wadani oo aan wax badan isku dhib qabnay kolkii hore. anigu wax kasta oo ay ku hadlaan marna kama dareen celiyo, waan ku qoslaa, waan cadhoodaa ama waxbaan ka sii bartaa. waxa iigu horreeyey ee aan qolkaas ka dhex helay ayaa ahaa 2 muuqaal oo labaduba ah shirar ka kala dhacay Boosaaso Muqdisho oo ay sameeyeen jaaliyadda Oromada, ayagoo midka Boosaaso ku beeninaya in wax lagu gaarsiiyey gudaha Puntland. xilligaasna waxaa jiray war ahaa in dad Oromo ah qaab argoosi ah loogu dilay magaaladaas. warka kalena waa shir Muqdisho oo ay dalbanayaan in jaaliyad ahaan la siiyo xuquuqdooda oo aan lagu xadgudbin. waxaa golaha lagu ammaanayaa hadalka kuwa ka hadlay Muqdisho oo lahaa kalsooni, hadal qanciyey dhalinyaradan. laakiin kuwa Boosaaso ka hadlay waxay ku tilmaameen daciifiin, cabsanaya, waan ogeyn isbeddelka jira ama la qasbay. fajac ay haysta aniga ayaa ah goortaas odayaasha ka hadlay Boosaaso sida ay af Soomaaliga ugu mahmaahayeen sugnaanta ereyada iyo habdhaqanka ugaas iyo suldaan oo ay isticmaalayeen. kuwa xamarna sida ay board weyn u surteen ugu yaraan dadkaas 40 ama 50 sano waxay ahaayeen Soomaali, laakiin waxaa la gaaray waqtigii ay asalkooda la soo dibadbixi lahaayeen. wax dhibaato dadkaas ma geysan, kumana aysan hadlin, laakiin waxay noqdeen dad ka soocan Soomaalida oo sheegtay qoomiyad gaar ah oo dalkan kula nool. taas Soomaalidu way ku adag tahay inay fahamto. mar walba oo aan la kulmo sheekooyin noocan ah saaxiibkay Wadani si gaar ah oo degan ayaan ula falanqeeyaa ilaa uu gaaray waxa uusan rabin inuu ila wadaago markiisii hore ee gudaha uu ii galo. anna waxaan haatan helayaa si tartiib ah jawaabaha aad wax badan dhowrayseen. Wadani waa nin xoog furan,
qadiyadanna ay dhab ka tahay wax badanna la macaamilay saaxiibo badan oo Soomaali ah isaguba waa muwaadin Soomaali ah. habeen ayaan su'aalay magaaladee dalka Soomaaliya u jeceshahay saaxiib. wuxuu iigu jawaabay Gaalkacyo iyo Muqdisho. anigu ma moodeen inuu ii sheegayo magaalooyinkan. waxaan idhi maxaad ku dooratay? wuxuu ii sheegay in labadaas magaalo uu ku soo qaatay waqti badan. waxaan idhi mid saddexaad ma jirtaa? wuxuu yidhi Burco. waxaan idhi ka waran dhulkii aad beeraha ku lahaydeen ee Shabeellada Hoose. wuxuu igu yidhi aniga waqti badan kuma soo qaadan halkaas, laakiin waalidkay aad bay u jeclaayeen. wada sheekaysiga aniga iyo Mr. Wadani wax kala shaki ah ma jiro haatan, waayo wax kasta uu yiraahdo waxba kama soo horjeesto oo sidooda ayaan u qaadanayaa. maalin ayuu igu yidhi saaxiib walaasha iga yar ayaa xamar lagu aroosayaa. saaxiib maad imatashid oo arooska ka qayb gashid. ninku masalana oo mararka qaar kalsoonidiisu waa mid xad dhaaf ah. anna inta aan haa iyo maya midna aan odhan ayaan su'aalay yaa aroosaya. wuxuu yidhi nin tolka ah oo ganacsada ah. waxaan idhi miyaan halkan gabadha qoyskiina ruux kale ku wehelin? wuxuu yidhi haa, habaryar iyo carruurteeda. markaas ayaan ka cudur daartay ka qaybgalka xafladdaas. sidaydana maahir ahaan dunida 3 aroos oo ehelka iyo asxaabta ah baan ka qayb galay. marka kayga laga reebo kama helo xafladaha aroosyada iyo badi kuwa aan xasiloonayn. saaxiibkayna wuu iga aqbalay cudurdaarkaas. halkaas ayaan ugu soo noqon doonaa sheekada aniga iyo Mr. Wadani ee markan aan jaleecno sida aan u ambaqaaday labadii khabiir ee uu igu xidhay saaxiibkaygii aan kala tashaday inaan wax ka qoro sheekadan igana saacido ogaalka xogaha muhiimka ah. labadaas nin wax badan ayay iga saacideen inaan idinla wadaago sheekadan dheer ee maalinba leh xiiso iyo faham gooni ah. waxaa ugu sahlan ee qoraa walba ku dhaliya inuu faallo ama sheeko sameeyo waa dhacdooyinka maalinlaha ah oo qaarkood ka baaxad weyn in lagu soo koobo tabin maalinle ah ama warbixin daqiiqada ah. in gudaha loo sii galo dhacdooyinka qaar ayaa sameynaya micno weyn oo wax tusmayn kara bulshada. waaba sababtii ballanqaadka sheekadaydan aan idin lahaa waxaad helaysaan dhacdooyin ay warbaahintu horay hal dhinac keli idinka tustay. haatan waxaan haynaa waddadii qisas badan aan dhinacyo kale uga soo geli lahayn. labada nin ee khubarada ah mid ka mid ah waa bare jaamacadeed, waana nin waayo arag ah oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika. wuxuu badi isticmaalaa luuqadda labaad ee dalkeena ee ah Carabiga. wuxuu horay u sameeyey sheekooyin badan oo xiiso leh oo u soo ekaanaya qaar qadiyadaha aan ka warramayno. isbarashadeenni kadib ayaan su'aalay wax badan, wuxuuna i siiyey iftiimin badan. ma dhici karaan qowmiyado aan Soomaali ahayn inay xuquuqo ku yeeshaan dalkan sanadaha ugu dhow? sidee? ma jiraan saadaallo muujinaya in dalkan si fudud uu u waayayo sifaha ah waa dal isku dad, isku diin iyo isku af ah? sidee? qabaa'ilka Soomaalida marka laga tago isdilka iyo dagaalada jahliga ah ee dhex mara, haddana ma yeelan karaan sifooyin badan oo difaac u noqda in lagu soo dhunto Soomaalinimada, mise way sahleen? sidee? wadaniyadan dadkii iyo madaxdii lagu ba'sanayo ee dadkeennii ka sii dhigaysa laba koox iyo ka badan oo iscaaya ee luminaysa wadajirka iyo wax wada lahaanshaha guud xaggay naga soo gashay? maxaa sanadahan sii xoojinaya? intaas oo weydiimo ah iyo jawaabahoodu waxa ay la socdaan qaybta 9aad ee xigta sheekadan.